بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabnaa in dhacdo runtii aad u xanuun badan ee ka dhacday magaalada Muqdisho inaan ka hadalno xalay saqdi dhexe waqtigii 4 aroornimo ayaa waxa dhacday muwaadin Soomaaliyeed oo gabar ah Qadre Maxamuud inay tagtay goob caafimaad ee degmada Xamar Jajab una tagtay fool haysay darteed inay ku dhasho goobtaas caafimaad goobtii caafimaad oo saacadaas saqda dhexe 4tii aroornimo ay tagtayna waxaa nasiib darro noqotay in loo diiday inay halkaas ku dhasho isla markaana gabadhii Soomaaliyeed Qadre Maxamuud ee goobtii caafimaad dibadda uga soo baxday banaankii ay noqotay inay ku dhasho waxaa kaloo aad iyadana ugu faraxsannahay in Qadre Maxamuud iyo cunugiba ay caafimaad qabaan hadda idinla hadlayno gudoomiye ku-xigeenka maamulka arrimaha bulshada ee gobolka gudoomiye Basmana ee booqatay si ay ugu koorgasho xaaladda gabadhaas ay ku sugan tahay Qadre Maxamuud iyo cunugii dhashayna labadaba aad bay u fiican yihiin shacabka waxaan ugu bishaareynaa arrintaas iyada haddana isbitaal ay ku jirtayna ay ka soo bixi doonto hase yeeshee waxaan rabnaa halkan inaan la aqbali karin goob caafimaad oo xaalad degdeg ah gabar Soomaaliyeed ugu timid inay dhasho in loo ogolaan waayo inay xaqaas oo hesho arrintan waa arrin fal dambiyeed meelna looga dhacay xaqa muwaadinkaas Qadre Maxamuud iyo dhammaan xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee foolanaya ma aha isbitaalkaas ama goobtaas caafimaad ay tagtay inuu u diido inay gabadhaas dhasho haddii ay wax kala dhici lahayn maanta mas'uuliyaddaasna iga qaadaya annaga ka maamul ahaan waxaan cambaareynayna falkaas isaga goobtaas caafimaadka ee ku kacday maamulka goobtaasna waxaan u gudbin doonaa hay'adaha dambi baarista si sharciga loo horgeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ay u muteystaan dembigaas iyo dembiga u dhigma laakiin annaga haddii aan nahay maamulka waxaa naga go-an shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan laga aqbali doonin goob caafimaad qof haween ah oo weliba dhalinyaro ugub ah markii ugu horeysay tahay goob caafimaad inta timaado loo diido taas wax la aqbali kara maaha wax la yeeli kara maaha waa dembiga ugu culus waxaan rajaynaynaa hay-adaha aan u gudbin doonan garsoorka iyo hay-adaha dambi baaristaba inay sida ugu dhaqsiyaha badan maamulkaas iyo isbitaalkaas loo baaro tallaabada sharciga waafaqsanna la waafajiyo shacabkan waxaan u sheegaynaa iyo goobaha kale ee caafimaadka ee laga yaabo inay falalkan oo kale ku kacaan inaan la isaga hari doonin waxaan samayn doonaa annaga maamulka gobolka Banaadir annagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka inaan goob kastoo caafimaad iyo dadka maamulaba shuruucda ay ku shaqeeyaan iyo nidaamka sidii loo waafajin lahaa oo falka noocan oo kale looga hortegi lahaa ayaan ka wada shaqayn doonaa waa mahadsantihiin